السلام عليكم kusoo dhawaada aas kaafiya taasoo ah weydii kaafiya ramadaan wanaagsan ramadaan mubaarak maanta waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago sida loo sameeyo cabitaankan ka samaysan ubaxa la yiraahdo English ahaan hibiscus laakiin ma garanayo af Soomaali waxa lagu yiraahdo laakiin ubaxaan idin tusaya laga sameynayaa waa cabitaan aad u muhiim ah oo aad caafimaadka ugu fiican waxyaabo badan ka dawa ah marka sidan aan idin tusay imika ahaan ayaan u sameyn doonaa qiyaasta waxaan rabaa inaan imika ahaan kariyo koob marka koobkaas waa koobkii loogu talagalay markuu qofku wax qiyaasayo koobkaas aan isticmaalayaa oo aan ku shubi doonaa distida kadibna insha Allah waxaan rabaa horta inaan maydho marka aan maydho kadibna biyo qiyaas ahaan baan rabaa inaan ku dhex karkariyo marka 3 koob oo biyo ayaan ku shubi doonaa hadii Ilaahay raahdo oo 3da koob aan ugu talagalay in aan ku fixiyo ubaxa ilaa inta aduu muddaha loo baahan yahay oo ah 15 daqiiqo inaan karkariyo ayaan rabaa si haduu toole moodkaasi weeyaan waxaan cabayno oo loo baahan yahay inta maxaa la yiraahdaa aynanu bilaabin karo waxaan rabaa inaan idin sheego waxyaabaha uu geedkani uu ka dawa yahay sidoo kale waxa kamid ah hypertensionka waxa kamid ah maxaa la yiraahdaa dhiigkarka qofka dhiigkarka qabo oo kale uu cabi karaa oo caawin kartaa sidoo kale waxa loogu talagalay dadka macaanka oo hayo iyagana inuu caawiyo ayaa loogu talagalay waxa kale uu fiican yahay beerkana caafimaad aad u badan buu siiyaa oo maxaa la yiraahdaa dad badan oo maxaa la yiraahdaa iyaguna u isticmaali kartaa ayaa jirta waxa kale oo caawiya dadka xanuunka aadka dareema markay sida dumarka ay waqtiga caadada ay ku jiraan aad ayuu kaasina u kaaga caawinayaa qoftii dumara ama gabadh ah oo xanuun dareenta waqtiyada ay caadada leedahay waxa kale oo lagu sheegay inuu dadka ku caawiyo qofka uu depression hayo ama marka ahaan buuqu ku furan yahay oo depression af Soomaali ahaan sida loo macneeyo waxaan u maleynayaa inay tahay qofka buuq markuu ku furan yahay oo fikiraayo waxyaabahaas oo kale sidoo kale wuxuu u fiican yahay digestionka oo maxaa la yiraahdaa in uu mindhiciradaada iyo calooshaada iyo uu nadiifiyo dadka waxa kale uu ka caawiyaa waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa inay dadku qofka raba inuu miisaan iska rido ama waxoogaa iscaateeyo wuu u fiican yahay wuxuu leeyahay vitamin C badan buu leeyahay iyo minerals badan buu leeyahay qofka raba inuu caloosha isdhaqaajiyo caloosha ku dhaqaajinayaa waxaa la dadka cholesterolka qaba ama jirkoodu subaga leeyahay oo laga helay aad buu u caawiyaa iyagana marka imika waan karkariyay maxaa la ubaxa waan karkariyay ilaa 15 daqiiqo markaas sonkortaan ku darayaa isagoo kulul waad arkaysiin uu qiiqayaa sonkortaasaan ku walaaqayaa ayno sonkor aad u badan baan ku daray laakiin waad arki doontiin intan oo kaliya ma aha maxaa la yiraahdaa cabitaanku biyo kale ayaan ku biirin doonaa laba nooc baad u samaysan kartaa haddaad rabtid isagoo oo xoogaa jaamid ah ayaad shaax ahaan u cabi kartaa haddaad rabtidna waxaad ka dhigan kartaa sharaab caadiya anigu markaan aan samaysanayay imika saad idinkuna arki doontiin sharaab caadiyan ka dhigtay anigu marka waxaad samaynaysaa imika haddaad rabtid sonkor inaad ku darsatid qasamaha laakiin waxoogaa inuu dhanaan yahay ayaa la moodaa marka dhanaanka haddaad rabtid inaad xoogaa iska yara fudaydisid sonkor baad ku darsan kartaa malab baad ku darsan kartaa aduu qof walba ikhtiyaarka isaga leh haddaad rabtidna sidaa u yahay ku cabi kartaa marka waan ka rogay waan ka miiray wixii biyo ku jiray haddana distidan ku celinayaa biyo kale ayaan ku dari doonaa waayo oo geedku weli maxaa la yiraahdaa mood badan baa ku jira ama dhicaan badan baa ku jira oo aan rabo inaan ka miirto marka biyo kale ayaan imika ku darayaa saa u yahay biyahaasina waxaan sameynayaa waxoogaa waan ku walaaqayaa oo waan ku jajabinayaa si uu moodka inta ku hadhay geedka uu iga soo baxo marka walaalahay aad iyo aad baad mahadsantihiin intaad daawanaysiin waxaan rabaa inaan idiraahdo haddii aanad subscriber ahayn
soo dhawaada subscribe-ka taabta waa bilaash wax weyn ma aha anigana wuu i caawinayaa wuuna i dhiirigelinayaa markaan arko idinkoo subscribe-ka taabtay waxaan u arkayaa inaad channelkayga iyo waxyaabahan aan soo gelinaya idin anfacayaan anigana dhiirigelin bay ii tahay idinkuna waad la soconaysiin marka mar walba oonaan wax soo geliyo insha Allah hana ilaawina beelka inaad taabatiin marka aad subscribe-ka taabatid ku dhufo jalaska dhinaca ku yaala jalaskaasina wuxuu sameynayaa mar walba video soo geliyo ogeysiis baa kuu soo dhacaya si aad u ogaatid inaan video soo geliyay hana ilaawina aad iyo aad baan idinka codsanayaa inaad maxaa la dhahdaa in aad Instagram-kayga iyo Snapchat-kayga soo follow garaysiin wixii comment qabtiina hoos igu soo qora hadii Ilaahay raahdo aad iyo aad baan anu jeclahay inaan idinkula xiriiro oo waxaad rabtiin inaad ila wadaagtiin aan u maqlo ama codsigaad haysatiin oo waxyaabaad iga codsanaysiin inaan ku soo dadaalo marka insha Allah comment-ka ku soo qora videogana ha ilaawina like inaad taabatiin haday idin cajabiso videogan video aad u muhiim ah weeyaan caafimaadka dad badanna inay wax u qaban karto ayaan aaminsanahay marka insha Allah ha ilaawina like inaad taabatiin marka hadda waxaan sameynayaa intii kale ayaan ku shubayaa biyihii labaad ee aan geedaha aan ubaxan ku dhex shubay ayaan ka miiranayaa imika marka inta kuma daynayo hadii Ilaahay raahdo waxa kale oo rabaa inaan sameeyo waxa weeyaan biyo kale ayaan ku dari doonaa sababtoo asaan hore idinku sheegay anu sharaab ahaan baan u cabayaa waxaan rabaa inaan ku afuro oo oon tiro ayaan rabaa marka intaasay noqotay biyo ahaan intaan imika haysto laakiin waad arkaysiin waxoogaa jaamud baa la moodaa inuu yahay aad buu cas yahay marka waxaan rabaa inaan biyo kale ku darsado qasab maaha inaad biyo kale ku darsatid haddaad rabtid jaamudka inaad ku cabtid ood ku cabi kartaa waxana wax ku yeelaya ma aha marnaba waa geed aad u wanaagsan caafimaadka dadka markay timaado aad iyo aad u wanaagsan marka qof walba ikhtiyaarka isaga iskale anu waxaan jeclahay sharaab ahaan inuu ii ahaado oo aan ku noqnoqdo siiba waliba maadaama geedku xoogaa dhanaan ayuu leeyahay yani sida lindanaanta ma aha laakiin haddana dhanaan buu leeyahay oo waxa la moodaa inuu xoogaa yara adag yahay marka sidaa darteed waxaan rabaa inaan anu iska biyeeyo biyaha kaliya maaha waxa kaliya oon ku dari doonaa insha Allah baraf waad arki doontiin waxaasoo dhan hadii Ilaahay raahdo wax kalood samayn kartaa geedka mintka la yiraahdo mint waa nacnacada ayaad ku dari kartaa imika waxaan ku darayaa waa ginger ama sinjibiil baan ku darayaa wax yar oo sinjibiil ah oo saa u badnayn ayaan ku darayaa sinjibiilkaasi markaan ku walaaqo kadib waxaan ku darayaa liin dhanaan caagadan waxa ku jirta liin dhanaan miiran waa taasi liin dhanaantaasaan ku darayaa waan isku wada walaaqayaa si fiican kadibna waxaan idin tusi doonaa insha Allah anoo ka shubaya dadka inta isle hadii geedku uu dhanaan yahay maxaad ugu daraysaa liin dhanaantu oonka ayay u fiican tahay ama haraadka ayay u fiican tahay waliba dadku markay sooman yihiin marka sidaa darteed baan ugu darsaday haddaanad rabin qasab maaha sababtoo ah geedku isagaaba dhanaanba inaad ku darsatid qasab maaha marka waa kaas maxaa la yiraahdaa liin dhanaantiina waan ku darsaday baraf baan koobka ku soo ritay sababtoo ah oo la sooman yahay waxoogaa cabitaan iska qaboobad u baahan tahay marka baraf baan ku dhex ritay saasay u eegyahay cabitaankii fiimta ayaa la moodaa soo maaha aad iyo aad buu qurux badan yahay maasha Allah walaalahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad baan idinka rajeynaya insha Allah inuu idin caawiyo oo faa'iido badan aad ka heshiin geedkan hadii Ilaahay raahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin ka soo qayb gasheen videogan hadii aad subscribe tihiin aad baad u mahadsantihiin oo markale soo noqonaysiin hadii aynan subscribe ahayn ha ilaawina subscribe-ka inaad taabatiin kuna dhufatiin beelka si aad ogeysiis u heshid mar walba oo video soo dhigo ha ilaawina Instagram-kayga iyo Snapchat-kayga inaad soo follow garaysiin wixii comment hoos igu soo qara hadii Ilaahay raahdo like-ana ha ilaawina aadaan u mahadsantihiin habeen wanaagsan dharaar wanaagsan ramadaan wanaagsan waan isku soo noqonaynaa insha Allah